سعادة الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أيها الأحبة في الله، نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وحاوليه الله تبارك وتعالى وحولي أباه ومعناه وأبوغاوه nin dhallinyaro ah ama ruux dhallinyaro ah oo aan lahayn leexasho loo leexdo hawada nafta ma laha dhallinyarayn, ma marin ciyaal suuqnimo, ma marin fasaad, ma marin xumaan. ruux dhallinyaro ah oo dhallinyaronimadiisa ku toosan oo dhallinyaronimadu ayna leexsanin, laanna marxalada dhallinyaronimadu waa marxalo doonitaanka iyo raqbaduna xoog badan tahay, cilmiga iyo caqliga iyo waayo aragnimaduna ay yar tahay. xakamihii baa daciif ah, matoorkii riixayayna waa xoog badan yahay. marxaladaa iyadaa waa marxalo ciddii badbaadaayay ay nasiib leedahay. saas daraaddeed buu nabigeennu wuxuu yidhi allah wuxuu la yaabaayoo cajab ah, wax lala yaaba ah, ruux dhallinyaro ah oo haddana aan dhallinyarayn lahayn, ma dhallinyaraynin. wuxuu u tegayaa xadiidkii nebiga sal alla alay wasalam fi saxiixayn min xadiid abi hurayra ee nebigu yidhi sal alla alay wasalam 7 ruux maalinta qiyaamada allah tabaaraka wa tacaala wuxuu hadhaynayaa hadhka carshigiisa. imaam caadil ah waxaa laba ku ah ruux dhallinyaro ah oo ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray, ma marin wakhtigiisa xilli ka mida ma soo dhallinyaraynin. markuu hana qaadayba cibaadada rabbibuu ku hana qaaday, cilmi sharci barashadii, ilaahay caabudadiisa, ummadda u khidmaynteeda, danihiisa khaaska ah wuxuu ku barbaaray wax ilaahay raalli ka yahay tabaaraka wa tacaala. martabada labaad baa la geliyey. waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidoo kale inuu dhallinyarada si gooniya u tawjiihin jiray oo hadallo khaasa ugu jeedin jiray nebigu sal alla alay wasalam. sababtuna waxa weeye waxaa laga fahmaya in ay dhallinyaradu yihiin ummadaha mustaqbalkooda, waa kaydkii ummadda waay, ummad kaydkeed waay, mustaqbalkeedii weeyo. dhallinyaradeedu sida ay tahay baa ummadda mustaqbalkeedu yahay. haddaad aragto ummad dhallinyaradeedii maandooriye mukhadiraad ay daadisay oo dhulka daadsan, qaarna ay shahawaad ku qaateen oo zine iyo faaxisho iyo qashin uun daba ordaya, qaarna adduunya qaadatay oo xooloseed ku heshaa uun keliyeeta fikirkiisu yahay. ummad haddaad aragta noocaasa mustaqbalkeedu waa mustaqbal madow waay. inuu ninka dhallinyarada ah hamigiisu ka wan yahay, kana sarreeyo shahawaadka iyo wax la cuno iyo wax la cabo iyo farjiga iyo yacni waxoogaagan xayawaanaadka iyo ibni aadamkuba ka siman yihiin, inuu hamigiisu ka sarreeyo oo ummad bedel, wax qabo, tawxiidka gaadhsii, sunnada faafi, sharka la dagaalan, ummadaada islaaxi, wax ka qabo inay ku jirto waay. xataa xaaladdu haba adkaato. hal miaal baan ku gabagabaynaya. intaasoo dhan waa haddii da'yarta iyo dhallinyaradu ay toosantaho hagaagto, hagaag bay keeni. waa daaqa iyo awood iyo tamar. hadday wanaag u dhaqaaqdo iyaduna wanaagsan tahay waxay keentaa cajaa'ib. nebi maxamed dhallinyaradii ku wareegsanay caalamka waxay ka tagtay wax ilaa maanta midhihiisa aan goosanayn. maxaa yeelay nebi maxamed baa hor socday, kitaabkiiyo sunnaday ku socdeen, dhallinyaronimadii baa looga faa'iidaystay, way dhaqaaqeen, caalamkii bay beddeleen. laakiin markii da'yartu fasaado oo fasaadku ama shahwo noqdo ama shubha noqdo oy dariiqa ka leexdaan, miaal waxaa u noqon kara nimankii khawaarijta ah. nebigu wuxuu sheegay sal alla alay wasalam waa dhallinyaro, caqli yari baa haysa iyo fudayd, cilmi yarina waa haysaayoo fiqiya aqoon male,
wax qabtay isdheheenoo waa dhaqaaqeen wax qabadkoodii wuxuu ka bilaabay waxay ka bilaabeen inay dhiigii daadiyaan saxaabadii laayaan inay dhiigga ummadda banaystaan inay ummadda kala jabiyaan inay awoodii ummadda burburiyaan inay ka tagaan dhibaato ilaa maanta midhaheedii ummaddu goosanayso afkaar aad halis u ah oo meeshay gaasho mudammiro ah ayay ka tageen waa miisaal da'yartu hadday khadka ka baxdo ummaddeeda waxay dhaxal siisaa wax aan laga soo waaqsanaynin quruun ama cuquud waqti dheer ummadda aahaarteedu ay ku hadhi doonto oo fasaad ah oo dhibaato ah oo burbur ah oo dhiig daata ah oo khasaaro ah oo ummadoo qaybsanta ah oo masaa'ib ah aan la tira koobi karaynin waa goorma waa markay khadka ka leexdo da'yartu ama waxayba noqonaysaaba da'yartu intay daadato oo ay u qaybsanto wax darooga daadisay iyo wax dumar iyo fasaad iyo faaxisha daadisay inay ummaddu dawrkaasi ay noqotoba dawrkaasi waa lumay oo markaa ay noqoto ummad baaba'day labadaasiba waa laba arrimood oo keeni karaya inay da'yartu dhibaato ku noqdaan ummadooda dhallinyaradu inay xambaarto hamiga iyo murugta ummaddeeda diinta rabbi iyo risaalada iyo tawxiidka iyo sunnadana ay dadka gaadhsiiso xataa xaaladda adag lagu jiro